shaki kuma jira in qof kasta uu doonayo inuu noqdo milyaneer dhalinyarnimadiisa si uu helo wax kasta uu baayay noloshiisa inta ka hadhay laakiin wiilkan dhalinyarada ee lagu magacaabo Bariminko waxa uu awooday inuu ka dhabeeyo niyadiisa isagoo yartahay daadiisu haddaba sidee arrintaas ku dhacday ninkan aad aragtaan wejigiisa waa Bariminko dad uu hadda yahay qofkan kale aad aragtaan sidoo kale waa Bariminko laakiin 20 sano ka hor waqtigaas maana waxay mid dhameeyay dugsiga sare haddana isagoo ay daadiisu yartahay waxa uu aasaasay shirkad ku dhisan been iyo khiyaameeya istawamarin shirkadaas oo la oran jiray Sidee shirkadaas oo Bariminko maamulo ka ahaa taasoo uu ka sameeyay shirkadda lacag kor u dhaafaya 100 milyan haddaba sidee u sameeyay lacagaha aad ka badan shirkadda Bari waxay ka shaqeynaysay maydhista roogga iyo hagaajintooda haddaba arrinta maydhista roogga waxa uu ku hoos watay waxyaalo kale oo kaliya maydhistu waxa uu dadka tuso oo ka dhigay inay shirkadiisu qabato ama ay ka shaqeyso isagoo shirkadiisu Sidee xadid jirtay informationada shirkadaha iyo samaynta istawamarin iyo been iyo khiyaamo haddaba intaan u gelin sida arrimaha uu sameyn jiray aan eegno taariikhdii hore iyo xagga uu ka soo bilaabay shaqada waxa uu ku dhashay Bariminko California isagoo ku soo barbaaray halkaa markay ay daadiisu 9 sano oo kaliya waxa hooyadii ay ka caawisay in shirkadda ay ka shaqeyn jirtay oo ay maydhista roogga in isagana uu ka shaqeeyo Bariminko qaybta suuqgeynta isagoo adeegsanaya moobilka arrintaas oo ka helay khibrad marka loo eego dadka daadiisa oo kala ah isagoo ka shaqeynaya Bariminko muddo badan ilaa uu ka helay khibrad ku filan oo markay daadiisu ay 15 sano oo kaliya waxa uu Bariminko furtay shirkad u gaar ah oo ka shaqeysa maydhista roogga iyo hagaajintooda bilowgii shirkaddu maanay adkeyn sababtoo ah waxa soo qaraaci jiray shirkadda dad badan isagoo u soo meeli jiray roogga kadibna uu ka qaadan jiray lacagta oo si degdeg ugu soo noqon jiray shirkadda daadiisu yar awgeed maanu wadi karin gaadhiga oo waxa kala shaqeyn jiray shirkadda saaxiibadii ayagoo u kaxeyn jiray gaadhiga haddaba dhowr bilood kadib furitaanka shirkadda Sidee iyadoo lacagta soo gala yarayd waxa uu Bariminko awoodi waayay inuu bixiyo mushaarka shaqaalaha taasoo ku kaliftay inuu dhaqaaqo wadooyin aan sharci ahayn si uu helo lacag uu siiyo dadka shaqaalaha shirkadda haddaba waxa ka caawiyay samaynta hawlaha nin loo oran jiray Tonbach ninkaas oo ahaa nin ka shaqeyn jiray hay'adda ilaalada badeecada suuqa ninkaas oo Bariminko uu sameyn jiray dokumentiyo been ah hay'adda uu ka shaqeeyo arrinta darteed waxa uu Bariminko furay shirkad laba oo samaysa dokumentiyo been ah isagoo sidoo kale xadiyay informationada shirkadda isla markaana wax ka bedelayo ka sameeyay lacag badan haddaba markay taariikhdu ahayd 1968 waxa uu furtay shirkad sarifka lacagaha intaa kadib waxa korodhay maalgashiga shirkadda isagoo Bariminko iibsaday guri weyn iyo gaari qaali ah haddaba sababaha kordhiyay kalsoonida maalgashadayaasha waxay ahayd kobcinta warbaahinta isagoo sii deyn jiray xayeysiino telefishinada Maraykanka arrinta kadib waxa korodhay faa'iidada shirkadda ilaa ay gaadhay faa'iidada shirkadda ku dhawaan 200 milyan haddaba Bariminko iyo shirkadiisu waxa baaris ku sameeyay wariye ka shaqeyn jiray Los Angeles Times waxaanu wariyahaas baaris ku sameeyay tuugnimadii hore iyo waxyaabihii hore ay sameyn jirtay Minko iyo shirkadiisa haddaba markii warkaa la sii daayay in yar kadib waxa la xiray shirkadda Sidee waxaana caddaatay arrinta Minko iyo shirkadiisa kadib 2 sano wax ka yar Minko waxa lagu xukumay 25 sano xadhig ah iyadoo sidoo kale la ganaaxay hay'addii iyo ninkii ka caawinayay samaynta dokumentiyada beenta halkaana waxa ku soo dhamaaday beentii iyo khiyaamadii Bariminko iyadoo lagu xiray shirkadiisa halka Bariminko waxa uu ku jiraa hadda 7 sano ee ugu horeeyay 25 sano ee lagu xukumay